بسم الله الرحمن الرحيم مهما عانو صوماليا جرتا oo la yiraahdo berberi wax go lagu qaado ka weyn arintan laga hadlayaa saldhiga berberi horta aan maantay mahmaadaasi runtii ay taagan tahay waxaana taariikhda aynu hadilmay muxuu ahaa ka dhaxalay in mahmaadaasi hadilmay muxuu ahaa ay soo baxday waqtigii Ingiriisku uu doonayay inuu Somaliland soo dego odayaashii hadilmay muxuu ahaa deegaanka oo Ingiriiska la hadlaya ayaa laga wariyay hadilmay mahmaadaas maantana hadilmay arinta taagan waa arin culus runtii berberi hadilmay halkay ku taala hadilmay wadankeena waa uu hadilmay muxuu ahaa xudin muhiim ah weeyaan mandaqadan aynu ku naalana hadilmay muxuu ahaa waa xudin aad iyo aad u muhiim ah oo mustaqbalka hadilmay tijaarada iyo amniga mandaqada hadilmay aad u saamaysa xagga hadilmay muxuu ahaa siyaasadda dawliga ee caalamka oo dhan loo fiirsadana iyadoo caalamku maanta uu moodo inuu dhinacan hadilmay geeska Afrika iyo badweynta Hindiya iyo hadilmay koonfurta Aasiya oo hadilmay muxuu ahaa dhaqdhaqaaq xoog oo siyaasi iyo amniba ay ka jiro hadilmay muxuu ahaa ahamiyad gaar ah ay magaalada Berberi ay ku leedahay saddexda qaybood ee hadilmay siyaasadaba sidaas aawadeed arinta hadilmay muxuu ahaa la soo wariyay oo la leeyahay dawladda Imaaraadka iyo dawladda Somaliland ayaa hadilmay ku heshiiyay in dekadaas ama airportka hadilmay muxuu ahaa dekadaas lagu wareejiyo oo hadilmay dawladda Imaaraadka oo ay noqoto saldhig military oo ay Imaaraadku leedahay waa arin runtii taabanaysa qaybaha kala duwan ee siyaasadda oo dhan sidaas aawadeed arin si sahala ah lagu dhaqaaqi karaa ma aha waa arin u baahan dadweynahana in hadilmay si wanaagsan loogu soo bandhigo oo waxa hadilmay dawladda ay damacsan tahay ee heshiiska la sheegaya qodobadiisa iyo wuxuu ka kooban yahay in hadilmay dadweynaha loo ogeysiiyo saxaafadda hadilmay Somaliland oo ay tahay ta u tabisa dadweynaha wixii hadilmay muxuu ahaa kulba macluumaad ee muhiim ah ee saameeya hadilmay nolosha iyo siyaasadda hadilmay Somaliland dadweynaha u tabisa ay si wanaagsan hadilmay muxuu ahaa ugu tabiso heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadu ka kooban yahay iyo wuxuu saameynayo wax weeyaan in hadilmay muxuu ahaa arintu ma aha iyada oo la diidsan yahay cilaaqaad innaka iyo Imaaraadka inaga dhaxeeya cilaaqaad waynu u baahanahay waa muhiim weeyaan wadankeenu halku ku yaalo jasiiradda Carabta iyo geeska Afrika وحدنت اسكو حده دولتها هدلمي جزيرة عربتها خاصة هدلمي محاها دولتها خليجك لغو مقعابو والدولة اينو يا سقوبا هنهي اينو وحوضا قبصنانا لو باهن يهي سيدا سوكالي دولتها جيسك افريكا ايتوبيا كمتهي جيبوتي كمتهي كينيا كمتهي اريتريا كمتهي الدولتها هدلمي السوداني منطقة الدولة فربضان او كمدنا وإنه هدلمي أرنتاس دواي خصيصة كل كاس أرنتو جوجل حاد فربضان إيو شرحات فربضان أيه هدلمي أوبا هنتهاي الصومال دو حيكون مهما هذا نين هدلمي هجوج حمي إنه حقرسني على الموضة دولة السيدة أرنتان وصور لجيسا واسع مودو وحلا قرينا إياه إنه هدلمي أرنتو تهاي هجوج حمادا سي ددوينه وحي جلسي هدلمي محاها تهون آدي وبلادن وللي هاي وحميش اللجوضة وحويا وحن دنتين كتيرين علاقات كإنك إيو الدولة ذا هدلمي محاها خليجك أو علاقات لجيابو إنه هدلمي
المية أرنتني هدي المية هديسون مركعته دباتك جلين كرتا يضو عنك يدولة ذا هدي المية جيس كأفريقيا إنه شارك إنه هي إنه هذا سقوبة هنا هي يدنا لوبة هي أرمها سوق على إنه وذا تشكيه لأنه أي هدي المية لماذا أرمها سوق على إله هدي المية بحاها سوى ناكسن لوجا باران دقو أنا واحد إلى تهاي هشيس كاسي وما بسلا إن ما أنت هدي المية بعلمان لكانه إن لا يراهدو هدي المية فوت بالجلين إياه وحان لفهم سنين هدي فوت لجليو دبعتهم باكتي ماده كل كأرنتا أنا واحد إلى تهاي هدي المية بحاها دنتا هدي المية يا لجا هلا دن أمدير باللجا هلا هدي المية بحاها دنينا واسيتو ووالجا مارمان وحيد دنا إن هدي المية ليسلقاتو لكن سدنتو وحي ما أنت كتشرتا أرنتا لجا هلا سالديجا بربرا إيربورك دكتة بربرا هدي المية يو إيربورك بربرا إن سالديج هدي المية عد دولة شيء على سيو ولي أرمهاسي وحاد وبسلاري معهم iyadoo sidaas tahay arrin kalena meesha way imanaysaa oo dawladda Soomaaliland ay xaq loogu leeyahay inay hadilmay dadweynaha soo hordhigto oo u sharaxdo taasina waxa weeyaan dawladda Soomaaliland ma aha dawlad la ictiraafay dawladda Imaaraadkuna waa dawlad muctarafa oo qaanuunka caalamiga ah hadilmay ku dhaqma saldhigaas berbero oo kale ka hadalkiisa iyo ka heshiiskiisu wuxuu u baahan yahay dawlad la ictiraafsan yahay oo weli ilaa imika hadilmiye loo haysto in iyadu meesha mas'uuliyadii ay leedahay oo dawladda xamar maanta ka dhisan dawladda Imaaraadku waxa laga maarmaana inay heshiis iyo isafgarasho arintaas ay hadilmiye ka wada gaadheen halkaas arintaas haday jirtana dadweynuhu wuxuu xaq ugu leeyahay dawladda Soomaaliland inay u sheegto waxyaalahaas waxa ka jira dawladda hadilmay xamar arintan halkay ka taagan tahay heshiiska ay Imaaraadka la gashay wuxuu yahay hadilmay muxuu ahaa kulka arimahaas oo aan wali bisleen oo loo ogeyn aniga waxa ila tahay dhibaato iyo hadilmay khalkhal ay dhinaca siyaasadda wadanka Soomaaliland ay hadilmay arintani gelin kartaa sidaas aawadeed waa in laga fiirsadaa si degan oo dadku ay hadilmay muxuu ahaa iyagoo degan ka dheregsan yihiin arintani waxay tahay kolkay dhamaato ayuunba hadilmay muxuu ahaa la geli karaa heshiiska laga hadlayo la leeyahay baarlamaanka la holkeenaya taasina mid dhamaatayna ma aha mid dadweynaha wali loo sharxayna ma aha mid hadilmay maanta jahwareer iyo iska hor imad wadanka ka dhalin kartana weeye sidaas aawadeed ayaan hadilmay anigu dawladda ka codsanaya inay arintaas dib uga joogsato si degan oo dadku hadilmay muxuu ahaa arintan si wanaagsan uga baaraan degana ay hadilmay ku dhaqado wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh